Asalaamu calaykum, magacayga waa Sabriin Maxamed Xuseen. Kusoo dhawaada channelka Family. Waxaan ka sheekeyn doonaa waxyaabaha caafimaadka ku saabsan. Ka hor waxaan ka hadli doonaa raashinka cuntooyinka qeybaha ay u kala baxdo iyo sida jirkeena u isticmaalo. Qeybo badan oo u kala baxa borotiinka iyo faatka iyo carbohydrates iyo kuwo kale. Laakiin hadda waxaan ka sheekeyn doonaa carbohydrates. Carbohydrates waa nooc ka mid ah cuntooyinka aan cunno. Waxaa ka mid ah cuntooyinka oo carbohydrate-ka waxaa ka mid ah khudaarta noocyadooda dhan, galleyda iyo waxyaabo. Carbohydrates markii la jeexiyo kadib wuxuu jirkeena u beddelaa sokor. Sokorta noocan ka hadlayo waa glucose. Qeybo badan u beddelaa laakiin aniga muhiimka ah waa glucose jirkeena wuxuu isticmaalaa energy ahaan. Markuu isticmaalo inta ka soo hartana waa la keydiyaa, inta soo harta waa la keydiyaa. Carbohydrates waxaa loo kala qaybiyaa simple carbohydrate iyo complex carbohydrate. Simple carbohydrates waa kuwa dheefshiidkeedu fudud yahay oo waqti badan qaadanayn, waana glucose, fructose iyo galactose. Complex carbohydrates waa mid dheefshiidkooda fududeen, waxaana ka mid ah starch la dhahayo ama galleyda laga helo ku jirto. Inta ugu muhiimsan aan rabo inaan ka hadlo waa sokorta sida uu jirku isticmaalo. Marka ugu horeyso carbohydrates-ka aan cunnay markii la dheefshiido waxaa loo beddelaa sokor. Kadib sokorta waxaa la raacsiinaa dhiigga si unug walba jirka ka mid ah uu gaaro. Laakiin sokorta si toos ah inay dhiig ugu baxdo ma gali karto unugyada dhexdooda. Marka waxay ka gashaa albaabkaas soo u furmo waxaa loo baahan yahay dheecaan lagu magacaabo insulin. Insulin waa dheecaan laga soo daayo unugyada goonida ah beta cells loo yaqaano afka qalaad, waxaana laga helaa qanjirka pancreas-ka la dhaho ama qanjirka beeryaraha. Insulin waa la soo daayaa markii uu sokorta dhiigga ku jirto ay sare u kacdo. Markay sare u kacdo oo insulinka la soo daayo, insulinka shaqadiisa waxay noqonay marka sokortaas inuu soo qaado dhiigga ka soo bixiyo oo dhex geliyo unugga dhexdiisa. Asigoo furayo albaabkii sokortii ka gali waysneed oo xareyna marka sokortii wuxuu ku xareynaa unugga. Marka haddii uu awood u yeesho insulinka la waayo ama uu awood u yeelan waayo inuu albaabkaas furo oo sokortii ku xareeyo unugga dhexdiisa, waa markaas markay imaanayso cudurka lagu magacaabo diabetes mellitus ama sokorta. Fiiro gaar ah sokorta aan ka hadlayo waa glucose, blood glucose level. Marka la baarayo waxaa la baaraa glucose-ka intuu ka yahay dhiigaaga. Mowduucan waxaan u doortay wax kale ma ahan, waxaan ka hadli rabaa cudurka Soomaalidu u taqaano sokorta. Laakiin ka hor waa inaan fahamnaa sida dabiiciga ah uu jirkeena u isticmaalo sokorta. Waxaan rajeynayaa inuu idin anfaco mowduuca. Weli waxaan ahay arday, inkastoo si fiican u diyaariyay haddana yaalay qabanin haddana wax qalday ama qaldamo waa Allah. Qofka diyaarisayna waa aniga Sabriin Maxamed Xuseen. Isma dhaafno karaa mowduucyo badan oo soo wadnaa insha Allah.